السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندي سلامي دمان قيرت كحرن جنال كسود وهذا عشر كنا مانتو وحكو سابسين هاي سيدي لو سميا تري موفمات هرتا سياد بازلada u heshid marka hore waxa ku dhufanaysaa hadii aad computer isticmaalaysid Bazalis meeshan waxa ugu jeedaa Basel themes marka ku dhufatid hadii aad telefoon isticmaalaysid oo browser isticmaalaysid browserka ayaad waxaad ku dhufanaysaa meel waxa jirta la yiraahdo use as desktop so markaas aad arki doontaa laakiin telefoonka aad si caadi ugu isticmaalaysid hadda waxa aan ku sheegay ma arkaysid Basel themes markaan ku dhufto Leges runtii aad ayuu u wanaagsan yahay waxa ka helaysaa opening key middle game key end game key rogue end game then anaga maanta waxaan u dalnaynaa marka waxa waaye waa mate in three move okay waan ku dhufanaynaa Baselada ay xalinaynaa marka so Baselkan u horeeyo hadda daan fiirino marka hore intaadan wax dhaqaaq sameeynin yacni just sideedaba waa move-ka aad dhigaysid waa inaad ka fiirsataa maamaha jirto ma leeyahay maamada waxay ahayd intaadan falin ka fiirso yacni saas camal waxaan kala jeedaa hadda sidee ayaad three move maad u samayn kartaa si fiican u fiiri maxallisay isku dayday horta waa inay wax ku sawiran yihiin ka soo qaad haddii aad hadda aad dishid kuwintan qalcadaas ku disho dee waxba attack ma samaynaysid laakiin se horta maad markii lagu sheego ama checkmate markaa maqashid waa in mar walbaba boqorka aad isha ku haysaa boqorka waa inuu ku muuqdaa saas awgeed boqorkii agaarkiisa aan ka dhowaanay baa horta so askarigan ka waran haddaan dilo askarigan yaallo c2 haddaan dilo ka waran askarigan yaallo c2 haddaan dilo boqorkan waxaa qasaba inuu tago a1 okay a1 uu tagay sideen ku samaynaa marka checkmate waa iga xaroodaba boqorkii waa iga tagay gudaha u galay sideen marka ku maadaa waxaa samaynaysaa sacrifice the queen sababtoo ah queenta kama qaalisano boqorka muhiimadda waxa loo socdo ciyaarta waxay tahay boqorkan in la qabto saas awgeed hadda fiir maskaxdaada marka waxa ku sawiranaysaa adigoo askarigan dishay boqorka uu halkaas galay then queentii aad halkaas sii dhigtay meeshaas kala fiiri oo ah c1 qalcadan ay queentii lagu dilay qalcadan kalena aad ku dishay mujeedaa marka waa in maskaxdaada ay ku sawiran tahay okay waxaan leenahay check qasab waa boqorka xaggaas inuu aado then sacrifice ayaan samaynaynaa kuwinteena waa la dilay laakiinse waxaan abaalmarin u hernay inaan ciyaarta ku guulaysano oo checkmate ayaan samaynay saas awgeed raidka ma ii furnayn dhib malaan waa furi doonaa okay aan u gudubno marka basalkan kale aan fiirino horta aan furta raidka se ugu darsamo raid waxaan maraynaa 1656 waa gartay haddaba sidee ayaan haddana ku samayn karnaa three movement isku day maskaxda ka xisaabi aye ana already waa arkay oo waa easy laakiin adiga ayaa laga doonayaa inaad isku daydid maxaan ku yiri horta markaad checkmate maqashid waa inaad boqorka ka ag dhawaataa sidee marka boqorka uga ag dhawaan karaa queentan ayaa awoodo okay queen e1 haddaan dhaho boqorkan wuxuu ku jiraa check boqorkan ma bixi karaa may waayo askarigan wuxuu kontroolayaa b2 oo boqorka kama bixi karo so boqorka marka maxaa u xal ah horta kow bishopkana lagu dabooli karaa bishopka haddii lagu daboolo queenta way soo laaban doontaa halkaas ayay imaanaysaa oo ah c3 queenta way soo laabanaysaa waxay imaanaysaa c3 so c3 markii imaado boqorkan checkmate ayuu ku jiraa markaas waxay noqonaysaa two movement waa ka fududahay laakiinse waxaa jirto in uu boqorka cadaanka samayn karo inuu qalcadan soo laabto then aan halkan hadala jack ka dhaho sorry halkan aan jack ka dhaho oo ah c3 uu boqorkan dala imaado b1 aan halkaas ka dhaho b2 checkmate okay sorry gacanta iga dhacday check ayaan leeyahay qalcadaas soo noqonaysa sababta bishopka hadduu ku xiro waaba ka fududahay two movement ayay noqonaysaa so check ayaan dhihi doonaa boqorka wuxuu ku qasban yahay inuu imaado b1 b2 na checkmate ayaan ka dhihi doonaa so fiir hadda bishopka hadduu dib u noqdo meesha hadda jagan dhasho ma bishopka hadduu dib u noqdo halkan ayaa checkmate laga dhahayaa waaba three move waa ka fududahay waxaana laga jaray 37 gacanta iga dhacday dhib ma lahan waa gartay haddaba hadda sidee u samayn kartaa three movement adigoo wato cadaanka macallisay isku dayday horta mar walbaba boqorka ka dhawaa waan ku dhahay so haddaan ka war qalcadaan siino taas waa qalad sababtoo ah
waad loos garayn doontaa. Mar walba markaa jackmate maqashana mid kale ha kugu soo dhacdo moveka qasabka ah, yacni madowga wax option ah yaa ha siinin, wax ikhtiyaar kale ha siinin, macnaha qasab moveka qasabka waa kan ugu xoog badan. yacni boqorkaada hadduu jag ku jiro oo maanta o dhan jag si ugu jiro jackmate lagugu sameeyey fursadba laguma siinin. So saasoo kale raadi marka. Okay, ma xalisay ma isku dayday G5 check waxaa qasaba in la dilo sababtoo ah boqorkii ayaa jeeg ku jiro meel uu aadana ma laha oo haddii intuu imaadana qalcadda ayaa halkaas checkmate ugu dhihi doonaa. So askarigii waan dilay boqorkii wuu soo baxay, so qalcaddan ayaa ku raaxaysan doonta checkmate. waxay noqotay marka fiiri lacalla haddii uu askarigan dilino intuu soo galo isagana waa checkmate, askarigeygana waa difaacayaa, asigana check ayaan ku hayaa oo meel uu ka bax ma laha, intana boqorkeyga ayaa ii controlo. So marka askarigan kale inuu kusoo dilo qasabay ahayd, markaan dilina qalcaddii ayaa hadale dishay. Okay, aan gudubna marka example kale. sidee ayaan u samayn karnaa tree movement? isku day tree movement. midda kale halkan fiiriya, halkan waxaa saaran weliba easier. hadda example-kan marayna waa 3 5 markaan gaarno 5 oo kuwa had ayaan xalin doonaa. So isku day marka inaad xalisaan. isku dayday ma xalisay? ka waran boqorkan haddaa inta jeeg ka dhaho wuxuu ku qasbaya inuu imaado G1. qalcaddan kale ayaan haddana waxaan ku leeyahay check G2. waxaa qasaba marka inuu imaado F1 and checkmate H1. Okay, check and checkmate. Okay, 3 move waa sameeyay sooma. Okay, waxaan maraynaa marka 1 2 3 4 5. midkii puzzle-kan ayaan marka kii u dambeeyay ka dhigaynaa, macnaha had ayaan u gudbaynaa oo meesha haddaa fiirisid waxaa ku qoran easier. So ma xalisay ma isku dayday boqorka ka ag dhawow. Okay, ka warka weynteeda hadda halkaas geey qalcaddan ayaa ku dili doonto qalcaddan ayaa ku dili doonto oo waxaad loos garayn doontaan kuweyntaada. laakiin mar walbaba fiiri move ka fiican, isku day inaad xaliso. boqorkan ha kuu muuqdo isha ku hay. So square-kan ka waran D7 yaa hayo waa maya. D7 haddaa kuweyntaan aad check ku dhahdo waxaa qasaba boqorkan inuu tago B8 then sacrifice. waa midda diida kale u eg tahay. Okay, check wuxuu tagayaa B8 and checkmate. That's the solution. Okay, marka waa bedelaynaa, marka waxaan ka dhignaa had 5 iyo 5 had ayaan ka dhigaynaa meeshan waxaan ku qoran hardest. hujada awal koran waxay ahayd easiest, normal ayaa jiro adiga dooran kartid. So hadale had aan ka dhigna marka bas normal aan ka dhigaa si caadi. Okay, marka waxaad dareemaysaa kan midka hore inuu ka adag yahay. isku day in aad xaliso tree movement. waxaan u malaynayaa aad ayaan u adkeeyey sababtoo ah waa tree movement oo hardest ah, balse maskaxdaya aan iska dhihin waa hard. isku day aan marka taxliilin samayno. horta boqorkan marka koobaad waxaa u furan godkan oo ah F2, meel kale oo u furan ma jirto. So ka waran haddee wax inta jeeg ka dhah haddii la helo waxaa qasab ah inuu checkmate galo sababtoo cid ka celis ma laha. laakiin kuwinteen haddaan meeshaan geel lahayn waxaa jooga fardahan. So fardahan ayaa jooga. ka waran fardaha haddaan dilno boqorka neef ayuu helayaa oo waxaa furmayo askarigan. even fardahan kale kugu dilaa oo waxaa furmi doono god kale cusub. So annagoo godkan ilaalinayno in pressure uu ka saarno, godkan kalena aan meel kalena ka furayno ma samayn karnaa. aan isku day inaad xaliso. anigu waan helay queen sacrifice haddaan samayno. ka hor queen sacrifice haddaan sameeyo waxaa qasaba fardaha inuu idilo. fardahan hadduu idilo waxaan sacrifice ku samayn doonaa fardahan kale. sababta maxay tahay? waxaan rabaa bishopka inaan afka u furo si aan G3 checkmate ugu dhaho. laakiinse meel kale uu furun kara ma jira. askarigan hadduu nagu dilo oo isku dayo inuu meel furto bishopkeyga ayaa weli wuxuu ku teedsan yahay ama diagonal u hayaa meeshan dhan ma furno marka. So queen sacrifice check and another sacrifice. askarigan kale hadduu furaxto waxba uma tarayso. So boqorka hadda meel uga bax ma ujeedaa? bishopkan ayaa iskaga raaxaysan doona ma ujeedaa? sababtoo ah meel ka bax ma lahan. hadduu ku dilo xataa fiiri askarigan kale hadduu ku dilo xataa weli bishopkeyga wuu controlaya fiilkan. So that's so difficult.
waa gartay handale isku day bal in aad samayso 3 move checkmate annagu waxaan rabnaa waxay tahay 3 move inaad checkmate ku samayno haddii marka xisaabteenna ay ka badato 3 move waxaan sideedaba waa in maskaxda aad ka xisaabtantaa 3 move aan kuu sheegay hadday ka badataa waa inaad waddada beddeshaa so aan fiirino marka mar walbaba aan xisaabino ka waran qalcadan hadda attackta lagu hayo haddaan check dhaho boqorkan 2 option u furan haddii xagga aado waa khatar sababtoo ah check ayaan qalcadan kale ku dhihi doonaa wuxuu ku qasban yahay inuu hoos aado markaas checkmate-kii ayaa dhow laakiin halkaas ma aadi doono halkan hadduu soo aado ka waran e4 e4 hadduu soo aado check kale haddaa dhaadina wuu soo baxsanaa so boqorkan aniga inta inuu galana ma rabo oo inta inuu ka baxsado ma rabo sababtoo meeshan waa meesha kaliya uu ka baxsan karo sorry meeshan waa meesha uu ka baxsan karo meeshan ma rabo inuu ka baxsado muu diidi karaa sababtoo qalcadan kale haddaan jeeg ku dhaho boqorkan meeshan uu galaa intuu ka soo baxsanaa so maxaan samayn karnaa marka si fiican u fiiri okay haddaan qalcadan jeeg ku dhaha ka waran qalcadan haddaan jeeg ku dhaho anoo tayda attack ay ku jirto boqorku wuu kugu dhegi karaa hadduu kugu dhego bishop ayaa ku caawinaya halkaas ayaa jeeg ka leedahay gadaal ayuu aadi doonaa haddana checkmate ayay dhihi doontaa so ka waran hadduu halkaas aadaninba oo inta soo aado halkan hadduu soo aado that's checkmate qalcadda kale halkan check ugu dhaysaa so waxaa qasaba marka xagga inuu aado haddaa gadaal check ka dhada fiiri si fiican fiiri haddaa qalcaddan check ku dhaho inta ma aadi karo markaan sababtoo ah faylkan dhan qalcaddeeda ay controlayso meeluu ka baxsada ma lahan qalcaddan kale haddaa marka inta check ugu dhaho meeluu aada ma laha waa 2 move checkmate xaggaasaa qasab marka inuu aado haddaan gadaal halkaas uu aadi doonaa then markuu igu dhego check ayaan dhihi doonaa haddale waxaa qasab inuu hoos u dego aan checkmate ayaan samayn doonaa check so ma jirtaa inta ma soo aadi karo check aan checkmate fiiri hadduu inta soo aado check aad tiri hadduu inta soo aado waa ka fududaanaysaa sheekada sidii hore waa ka fududaanaysaa waa 2 movement meeluu aado meel boqorkan so hadiska waxaad malaysaa inay xoogoo yara adag yihiin sababtoo dadka waa bilow normal aan ka dhigo normal fiiriya marka basalkan kusoo gabagabaynaa normalka ah waa gartay haddaba isku daya inaad xalisaan basalkan waxaan u malaynaa kan kuwii hore waa koo fudud yahay sababtoo waa normal waana iska normal okay ma xaliseen isku daydeen inuu muuqaalka dheeraadana ma rabo waa gartay aniga waxay ii muuqato G4 inaan check ka dhahno boqorkan xaguu aadi karaa G4 haddaad check ka dhahdo ilaan intaan dhan waxaa ku kontroolaya qalcadaadii waxaa qasab ah kuwintaan in lagu soo hordhigo haddii lagu hordhigi waayo 2 movement ayay noqonaysaa oo halkaas oo ah G2 ayaa checkmate ka samayn doontaa check qasab waa kuwinta in lagu keeno check and checkmate even inta waa ka dhigi kartaa ogow okay oo halkaas hataa checkmate waaye sababta waxa ku kontroolaya waxay tahay waxa ku kontroolaya waa qalcadaadii okay waadi salaamiya marka muuqaalka halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu